السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح آدي هذا ومهتسنتهين ما أنت وأربعة صدح يطبنك بشكوبي طبنات سنة كلابد كون أفريل لباتنك لحدن سديد معلومات أي كهرسان إن ترام وحلك كلا وريجو مدحوين جو بايدن ترام waxa uu ku mashquulsan yahay magacaabista golihiisa wasiirada iyo mas'uuliyiinta la shaqeyn doonta shalay ilaa iyo xalay wasiirro kala duwan ayuu magacaabay oo kuwa muhiim ah ay ku jiraan Elon Musk muxuu yahay xilka uu magacaabay Trump sidoo kalena isaga iyo Biden ayaa aqalka cad ku wada kulmay maanta maxay ku wada hadleen maxayse sheegeen iyadoo sidoo kalena Trump inta uusan Biden la kulmin oo sidoo kalena la kulmay xubnaha Republicaanka ee aqalka wakiilada Trump wuxuu ka yiri in mar saddexaad uu tartan doorasho Mareykanka uu u galo walow dastuurka uusan u ogolaanaynin arrimahaas oo idil ayaan rabaa inaan idin la socodsiiyo balse marka hore aan ku hormaro madaxweyne Joe Biden ayaa aqalka cad maanta ku soo dhaweeyay madaxweynaha la doortay ee Donald J Trump waxaan ognahay hadda toddobaad ayaa ka soo wareegtay markii Trump la doortay talaadadii shalay ahayd tii ka horeysay ahayd waxay doorashadu ay dhacday sidaa darteed Trump isla markiiba Biden waa kii wacay oo u hambaliyay isla markaana ku casuumay aqalka cad inuu yimaado waa arrin dhaqan ah oo soo jirtay oo madaxweynaha xilka ka dagaya midka la doortay inuu ku casuumo aqalka cad oo ay wada kulmaan inta aan la gaarin dhaarinta madaxweynaha cusub Trump ma uusan samaynin markii uu Biden ka guuleystay sanadkii 2020 waxa ugu horeysay aqalka cad uu ku soo laabto maanta waxaana uu ka baxay 20kii January ee sanadkii 2021 aqalka cad uu dib ugu soo laabto maanta ayaa ugu horeysay waa ku dhawaad muddo 4 sano ah ma uusan ku soo laabanin laakiin Biden sidii uu Trump sameeyay ma uusan sameeyninoo waa uu ku casuumay maantana waa uu ku qaabilay aqalka cad sidii dhaqanka ahayd xaaskiisa Melania ma aysan la socon oo ay ka hartay waxa ay ka careysan tahay baaritaankii FBI-da ee qasriga Mar-a-Lago oo odageeda Trump iyo adu ay degan yihiin baaritaankii lagu sameeyay bishii August ee sanadkii 2022 markii Trump dokumentiyada sirta uu qaatay FBI-da ay baaraysay waxa la leeyahay qolkii ay deganeed ayaa la baaray meeshii dharkeeda ay gashanaysay marka arintaas waxay leedahay Biden ayaa soo amray marka martiqaadkii ay Jill Biden xaaska madaxweyne Biden ay u fidisay ma aysan aqbalin oo Trump kaligiis ayaa aqalka cad tagay sidaasi ayayna ku wada kulmeen hadal kooban oo aan daqiiqad dhamayn ayaa halkaasi ay ka yiraahdeen warbaahintuna su'aalo ay weydiiyeen laakiin labaduba ma aysan ka jawaabin Biden iyo Trump Biden ayaa markii hore soo dhaweeyay Trump waxana uu yiri madaxweynaha la doortay ee Trump congratulations waa ku hambalyeynaya soo dhawow waxaanan ayaga aan ku dadaaleynaa sidii kala guur wanaagsan uu u dhici lahaa Trump ayaa hadalka qaatay waa u mahad celiyay Biden waxana uu yiri siyaasaddu waa adag tahay ayuu yiri Trump ayaa sidoo kale waxa uu yiri marka dhinacyo badan laga eego ma ahan adduunku mid wanaagsan laakiin adduunku maanta waa mid wanaagsan marka wuxuu la jeedaa ma ahayn markii hore adduunku mid wanaagsan laakiin maadaama aniga la doortay hadda adduunku waa wanaagsan yahay hadalkiisadaasi ayaa loo fasiran karaa Trump hadalkiisii wata ayaa sidoo kale waxa uu yiri waxaan sidoo kalena aniguna aan eegayaa kala guur wanaagsan inuu dhaco mid wanaagsan inuu noqon doono ayaan rajaynayaa waana kaaga mahad celinayaa Joe Trump waxaan ognahay intii ololaha uu ku jiray inuu Joe Biden uu caan jiray dhahaji Sleepy Joe Cricket Joe waxyaabahaas oo idil inuu dhihi jiray waxa jiray inkastoo aan la arkin Biden oo caynaya in Trump oo si public laakiin waxa la kulamada hoose markay jiraan oo microphone uusan meesha oolin waxa la yiri odagu waa u qanjeeri jiray marka Biden oo ku soo dhaweeyay aqalka cad sida dhaqanka ahay Trump wayna wada kulmeen wariyaasha su'aalo ay isku dayeen inay weydiiyaan laakiin labaduba ma aysan ka jawaabin Trump inta uusan aqalka cad imaan waxa uu la kulmay xubnaha Republicaanka ee hadda la soo doortay aqalka wakiilada ee Congress-ka waxaana uu kula kaftamay ma awoodo ayuu yiri inaan mar saddexaad soo sharaxo laakiin isagoo la kaftamay ayuu waxaan ka shakisanahay inaan mar saddexaad aan tartami karin ilaa adinku aad tiraadaan waa wanaagsan yahay isla markaana aad wax kala sameeysan macnaha waxa ka wada dastuurka hadda isbedel ku sameeysan mar saddexaad waan soo sharaxi karaa sidaan ognahay Mareykanka madaxweynaha 8 sano ayaa loo ogol yahay ama 8 sano oo isku xigta ha noqoto ama sida hadda Trump 8 sano oo isku xigeen ha noqoto marka dastuurka miyay wax ka bedeli doonaan marka Congress-ka si Trump loogu ogolaado inuu mar saddexaad soo sharaxi karo oo tartami karo arrintaasina sidoo kale wayna arki doonaa markaas kadibna waa la qoslay markii hadalkaasi uu Trump yiri Trump sidoo kale waxa uu taageeray Mark Johnson afayeenka hadda xilka haya in uu mar kale xilkaasi qabto wuxuu yiri wax wanaagsan ayuu qabtay adinkuna si wanaagsan ayaad ula shaqeyseen Republicaanku hadda aqalka wakiilada qarka ayuu
saarayeen aqlabiyadda inay la wareegaan. dimuqraadiyiintu 207 kursi ayay hadda haystaan, 216na waxaa haysto republikaanka, walow hadda 2 xubnood oo ku jirtay aqalka wakiilada Trump uu xilal u magacaabay. markaasi waxay noqon doontaa in la bedelo. marka 218 hadday gaaraan iyaga ayaa aqlabiyadda la wareegaya. dhinaca kale xubnaha republikaanka ee aqalka sanadka ayaa maanta cod qarsoodiya waxa ay ku doorteen gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka, waxaana bedelayaa Mitch McConnell oo horaantii sanadkan sheegay in uusan hogaanka aqalka sanadka uusan u tartami doonin maadaama 82 jir yahay, laakiin 4 sano ee uga harsan xilkiisa sanadka waa uu dhammaysan doonaa. marka 3 xubnood ayaa sharaxnayd in John Thune oo South Dakota laga soo doorto, John Cornyn oo Texas laga soo doorto, iyo Rick Scott oo Florida laga soo doorto. Trump iyo Elon Musk ba Rick Scott ayay taageereen qaar ka mid ah xubnaha sanadka, laakiin wareegii koobaad ayuuba ku haray. waxaana la doortay John Thune oo 63 jir ah isla markaana laga soo doorto South Dakota. wareegga labaad waxay isku soo hareen cod qarsoodi ah ay ku dooranayeen John Cornyn oo Texas laga soo doorto. 29 cod ayuu helay John Thune oo loo doortay gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka ee xisbiga Republikaanka, halka 24 codna uu helay John Cornyn. sidaas darteed marka waxa uu ku noqonayaa gudoomiyaha aqlabiyadda ee aqalka sanadka oo horay Mitch McConnell muddo 18 sano uu xilkaasi uu u soo hayay. Trump waa kii yiri aqalka sanadka waxaan ka doonayaa qofka hogaanka noqonaya in la uu ogolaado recess nomination wax la yiraahdo, oo ah haddii fasax uu ku maqan yahay Congress-ka in magacaabis uu sameyn karo isla markaana aysan uga baahnayn in aqalka sanadka uu meel mariyo. waxaan ognahay golaha wasiirada uu magacaabayo in aqalka sanadku ay meel marinayaan, ma ahan aqalka wakiilada, looma baahna sanadka oo kaliya ayaa u coday isla markaana meel mariya. haddana Republikaanka ayaa 53 xubnood helay, halka dimuqraadiyiintuna 47 ay leeyihiin. dhinaca kale Trump shalay ilaa xalay waxa uu magacaabay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, marka xubno la yaab leh ayaana ku jira. waxaan ognahay ilaa iyo aan laga gaarayo dhaarinta golihiisa wasiirada ayuu magacaabi doonaa. waxa ugu horeeya Elon Musk oo ah ninka ugu taajirsan adduunka, iyo weliba Vivek Ramaswamy oo nin asal ahaan waalidiintiis India ay kasoo jeedaan oo ganacsado ah. Trumpna la tartamay madaxtinimada, laakiin isreebkii ku haray in uu labaduba yiri waxaan u dhiibayaa wasaaradda la yiraahdo ama waaxda la yiraahdo beeqaaminta dowladda. waaxdan waxay qaabilsanaan doontaa lacagaha la iska qasaarinayo wasaaradaha in la soo koobo, lacagta dowladda ku baxayso micnaheeda in aysan lacag la musuq maasuqay ama waxyaabaha lagu isticmaalayo inay la socdaan. micnaha beeqaaminta waxtarka lacagta dowladda ayaa loo xilsaaray Elon Musk iyo Vivek Ramaswamy. Elon Musk waxa la leeyahay sidii Trump loo doortay maba uusan ka soo bixin Mar-a-Lago, xitaa madaxda dowladda caalamka ay soo waceysay marka uu la hadlayay waa uu la joogay, sida madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo xitaa Trump uu dhiibay telefoonka markii uu la hadlayay, maadaama internetka uu siiyo Starlink la yiraahdo Ukraine uu siiyo madaxweynaha Ukraine oo madaxweynaha Turkiga markii uu la hadlayay waxa la leeyahay sidoo kale qolka ayuu kula jiray. marka ma uusan ka soo tagin ayaa la leeyahay, xitaa maanta Washington ayuu u soo raacay. marka Elon Musk iyo Vivek Ramaswamy wasaaraddaasi la yiraahdo Department of Efficiency la yiraahdo ayaa Government Efficiency ayay hogaamin doonaan oo DOGE loo soo gaabiyo. sidoo kale arrinta la yaab kale golaha wasiirada uu Trump magacaabay waxa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga uu magacaabay nin la yiraahdo Pete Hegseth. ninkaasi wariye ka tirsan Fox News ayuu ahaa, inkastoo khibrad ciidan uu leeyahay, laakiin la yaab ayay noqotay markii la ogaaday in nin wariye oo Fox ka shaqaynayay isla markaana maalmaha Sabtida iyo Axadda inta badan u badnaa uu u magacaabay wasiirka gaashaandhigga. uu yiri ninkaasi ayaa wasiirka gaashaandhigga hogaamin doona. arrintaasina waxay ahayd arrin kale oo la yaab leh. sidoo kalena wasaaradda amniga gudaha ayaa waxa uu magacaabay gudoomiyihii gobolka South Dakota Kristi Noem oo Trump taageerayaashiisa ka mid ahayd, isla markaana si weyn ugu ololeysay oo la doorashada xitaa kala qayb galaysay. 8 mar ayaa ciidamada ilaalada qaranka ee South Dakota waxay u dirtay gobolka Texas si ay xadka ciidamada ilaalada qaranka ee gobolka Texas gobolo dhowr oo Republican oo ciidamo u diray ay ku jirtay 8 jeer oo kala duwan. marka waxay wada shaqayn doonaan ninka isniintii uu magacaabay arrimaha xadka iyo musaafiriinta oo Tom Homan la yiraahdo. Kristi Noem marka wasaaradda amniga gudaha waxaa hoos imaanaya dhowr hay'adood oo kala duwan. waxaa ka mid ah hay'adda maareynta masiibooyinka ee FEMA loo soo gaabiyo, ciidamada ilaaliya madaxweynaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda ee la yiraahdo Secret Service-ka. waxaa hoos imaanaya ciidamada xuduudda ilaaliya oo US Border Patrol-ka la yiraahdo. waxaa hoos imaanaya sidoo kale ciidamada ICE oo iyagu dadka soo qabta isla markaana tarxiila oo la yiraahdo US Immigration and Customs Enforcement oo Tom Homan uu hogaaminayo. marka waxaasi oo idilba waxay hoos imaanayaan wasaaradda amniga gudaha. marka Kristi Noem ayuu u magacaabay. sidoo kalena John Ratcliffe ayaa waxa uu magacaabay madaxa ciidamada CIA-da ee sirdoonka. sidoo kalena waxaa jirta
jirtay Steve Witkoff inuu u magacaabay ergeyga gaarka ah ee qaramada Mareykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe. Ninkan Steve Witkoff waa nin maalqabeen ah, waa ninkii Trump ay golofka isla ciyaarayeen 15 September maalintii ninkuu isku dayay inuu Trump dilo. Ninkii golofka isla ciyaarayeen waa marka Trump dadka uu magacaabayo waa dad saaxiibadii aad ay isugu dhow yihiin. Maxaa loo dhahayay dowladaha Afrikaanka ayaa dadka aan u dhow iyo dadkaasi magacaaba. Mareykanka hadda waa kana Trump dadka uu magacaabayo dhammaantoodba waa dad isaga daacad u ah isla markaana aad ugu dhowaa aadna u taageersanaa. Steve Witkoff marka ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe u qaabilsan dowladda Mareykanka ayuu magacaabay. Mike Huckabee ayuu sidoo kale waxa uu magacaabay safiirka dowladda Mareykanka u fadhin doona Israa'iil. Ninkan Mike Huckabee gudoomiyaha gobolka Arkansas ayuu ahaan jiray. Haddana gabadhiisa oo la yiraahdo Sarah Huckabee Sanders ayaa hadda waxay ka tahay gudoomiyaha gobolka Arkansas. Sarah xilligii Trump uu madaxweynaha 4 sano oo afhayeenka aqalka cad ayay muddo kooban ay soo noqotay. Marka haddana waa gudoomiyaha gobolka Arkansas. Aabaheed ayuu magacaabay safiirka dowladda Mareykanka u fadhin doona Israa'iil. Mark Waltz ayaa sidoo kale waxa uu magacaabay ammaanka qaranka inuu kala taliyo Trump. waa xildhibaan Florida laga soo doorto. Sidoo kalena xubnahaasi kala duwan ayuu Trump magacaabay. Hore waxaanu ognahay Elise Stefanik inuu magacaabay in ay safiirka dowladda Mareykanka qaramada midoobay u fadhin doono. Susie Wiles oo u magacaabay madaxa shaqaalaha ee aqalka cad ku xigeenna waxa uu uga dhigay Dan Scavino, halka sidoo kalena Stephen Miller oo isagana ka dhigay ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee shaqaalaha uu ka dhigay. Waxyaabahaasi oo idil wasiiradaasi kala duwan ayaa Trump uu magacaabay, welina kuwa badan ayaa u harsan. Waxaa hadda la leeyahay sidoo kale ninka la yiraahdo senator laga soo doorto gobolka Florida oo Marco Rubio oo asal ahaan waalidiinta ay Cuba ka soo jeedaan, isla markaana Trump 2016 la tartamay oo xitaa Lila Rubio uu bixiyo Rubio yara waa nin gaaban marka oo jab yar inuu ka dhigi doono wasiirka arrimaha dibadda oo la filayo inuu isagana u magacaabo xubnaha ugu cadcad uu ka mid yahay. Marka wayna arki doonaa sidoo kale Trump waxyaabaha kale oo magacaabi doono, laakiin Kristi Noem iyo Tom Homan marka ay ishelaan meeshaasi waxbaa ka soo socda. waa wasaaradda amniga gudaha haweeneyda uu magacaabay iyo ninkan kale oo ciidamada uu magacaabay iraade in arrimaha xadka iyo sidoo kalena masaafurinta dadka soo galootiga ee sharci la'aanta waa laba qofood oo labaduba aad ugu ololeynayay in dadka la tarxilo. Marka wayna arki doonaa sidoo kale waxyaabaha ka soo kordha. Aad iyo aad ugu mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sidaayo. Nabadgelyo.